munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen safiirada dalalka Soomaaliya iyo Djibouti ee dalka Turkiga ayaa ka dhacday magaalada Ankara taasoo ujeedkeedu ahaa furitaanka maqaayadda Yemeni Somali Restaurant oo ah tii u horeysay nooceeda oo laga furo magaalada Ankara. sidoo kale munaasabadan furitaanka ayaa lagu marti qaaday qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka Turkiga iyo waliba qaar ka mid ah dadka aan martida u nahay ee Turkida. waxay noqon doontaa maalinta xorriyadda gobolada koonfureed iyo midnimada Soomaaliya. marka runtii waa asbuuci Soomaalida. marka runtii aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa walaalaha furay businesskan weyn ganacsigan aadka u weyn ee muuqda Carabiya cajab ka soo qayb gashay business ku jira guryo goglan iyo maqaayad laga cunteeyo oo maqaayadii Yementii aynu naqaanay ah oo cuntadeeda aynu wada xiisayno iyo supermarketyo iyo dukaamo iyo meelo aroosyada lagu qabsaday iyo aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaynaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta Türkiye'mizi, Somalimizi bütün Müslüman ülkelere yardım eyle ya Rabbi. Düşmanların şerrinden emin eyle ya Rabbi. Yemenli Müslüman kardeşlerimize de yardım eyle ya Rabbi. Bu Suriyeli, Iraklı, Myanmarlı bütün Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için amin diye cemaat-i müsliminin bütün geçmişlerin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Ana ku hadlaya magaca shirkadda Bushra waa idinkaga mahadnaqayaa imaatinka iyo ajiibida soo ajiibteen qadadii sharafta ay sameynay waa mahadsantihiin. guud ahaan bulshadii ka soo qayb gashay furitaanka maqaayadda Yemeni Soomaaliya ayaa aad u soo dhaweysay tallaabadan horumar kale oo ay qaaday shirkadda Bushra oo ah kambaniga hirgeliyay maqaayadan ka dhigan saldhig iyo guri Soomaaliyeed oo lagu hirto. Cabdi Fataax Abaal, Royal TV, Istanbul.